waxaan saaka meediyaha ku arkayaa nin la yidhaha Cali Guri ninkaasoo anigu aan u malaynayo dee nin xanuunsanayo aan miyir qabin waayo intii Soomaaliland jirtay ee gobonimada dib loola soo noqday Cali Guri waxaan arkayaa sida oo qaylinayo uu mar uu wanaag ka hadlayo oo uu wax sheegayo oo leeyahay waxaas waa wanaagsan yihiin Cali Guri ninka arkay uu ii soo sheeg ala kaaga marxad furay kulmiyu galay oo waxbu caaya oo cid buu ahaa oo waxbu caaya oo udub buu ahaa oo waxbu caaya nin baa bari qolada reer Burco dacayday wuxuu yiri warta Burcoy marka leerku baqtiyana oo baa tiraahan markuu baxana oo baa tiraahan madow iyo cadaanka kiiba jeceshin warta Cali Guri muxuu jecel yahay Cali Guri wuxuu jecel yahay waa noocma labada oday meel buu kaga dhacay ummadda reer Soomaaliland oo dhanna meel buu kaga dhacay marka hore wuxuu yiri Salebaan waa wasad xaraan oo gudoomiyaha golaha gurtiga wuxuu yiri waa wasad xaraan oo Soomaaliland ku dhex jirta horta hadii xaraan ay jirto wasad xaraan ay jirto Salebaan xaraan ma yahay ninkii fakinka ku dhashay waa xaraana nin baa bari wuxuu yiri Cali Guri waa garac anigu oran maayo laakiin nin baa bari wuxuu yiri Cali Guri waa garac saaka markuu leeyahay reer Sheekh Isxaaq waa waslad xun oo ummadda Soomaalida ku dhex jirta taasi marxaati bay furaysaa ninka ummadda dhan ee reer Sheekh Isxaaq la yiraahdo ee sheekh leh ee shariif leh ee caaqil leh ee codkar leh ee sabi leh ee saqiir leh maanta media isla soo taagay reer Sheekh Isxaaq waa wasad xun taasi waxay muujinaysaa inuu garac yahay reer Sheekh Isxaaq ahayn waxaan leeyahay ummaddu ha isaga timaado nin wala tolkiiba muu qaba Cali Guri cid buu ka dhashay ummaddu ha isaga timaado Cali Guri wixii laga yeelaayo Cali Guri cidii dhiigiisa leh deeq qabso ilaa hadduu sida loo hadlo khalad baa imanaya isku dhac baa imanaya أول تدبو عايشر وقف عايشر وشخص عايشر وهرب عايشر ما أنت وحمر يا ريش حساب وصل حرامة وحنقدر يا وكله قبل يا عمر أنا يقول الله هانك لو نشري دلايت أيها واحد كشتي قد باستن لقى كياني أو قرع عمو أنا مقل قلو بقيت ذا منك أو كسوقع سلبان يعر والله ما مسؤولية لبنا مسؤولين والله منه كم يتأثير كسوال لان أي ما أنت كنت عجنت هاي والله منه برمجيدة قف كمان تلوى حرام أنا أقول حولنا إسقى حرام waxaan kala ku darayaa ummaddu way isdhalishaa ilaa iyo markii adduunkan la taagay haabil iyo qaabil baa isdhaliilay dunida kaligood joogo ilmo nabi aadana dhalishu horena way u jirtay adduunyadana intay jirtana dhalishu way jiraysaa wax dhamaanay maaha laakiin wixii dhaliil leh in la dhaliilo ayaa qurux badan dhalisha lafteeduna in lagu talax tagin baa qurux badan ummad kasta oo adduunka korkiisa ku nool gaar ha noqoto muslim ha noqoto majhuus ha noqoto kristaan ha noqoto birmageydi leedahay gudoomiyaha golaha gurtiga wixii uu qarankan u qabtay ma aha wax aynu media ku soo koobi karno wax aynu maanta isu sheegi karnana ma aha waxa uu kamid yahay tiirarka Soomaaliland maanta ku taagan tahay tan iyo maalintii uu Salebaan hana qaaday kamuu shaqeynay waxaan qaranka Soomaaliland dan u ahayn alooshii wanaagsanna way og tahay indhihii wanaagsanna way arkayaan dhagihii quruxda badan ee wax maqlayaan way maqlayaan ninka maanta yiri Soomaaliland ilaa iyo maalintii la abuuray ilaa faqashtii Salebaan waxaan hagardaamahayn kama shaqeyn dee afkiisuun buu ku hadlay Salebaan Soomaalidu waxay ku maamada waraabe u la gaari waa afna wax laga jari waayay Soomaaliyin Cali Guri yaani la barbar dhigi karo ama comparison lagu sameyn karo labadooda maaha 70 jir sakhraan oo farshada cabba oo Ilaahay rasuulkiisa mid noqon oo sujuudin inuu madaxda qaranka maalin banin aflagaadeeyo oo yiraahdo yaani ama waa sidan ama waa wasal xaraan ama waa aynkan ama reesh isxaaq madax maro waanu ka tacsiinina aad baan uga tacsiinina halka laba shahaada ka bixinaya saaka labada gudoomiyaha golaha gurtiga iyo gudoomiyaha golaha wakiilada laba shahaada siinaya runtii waxaan shahaada ka siinayaa ayda aan geyn ninka 70 jirka ee xanuunsanaya oo kula kufay shahaadan ka siinaya waxaan leeyahay qaali ka hada Cali Guri shahaada siinaya oo waxaan siinayaa shahaada aflagaadadii ayda ee Soomaaliland digriga asaas ka siinaya cid Cali Guri kula tartami kartaana ma jirto shukran wa xiriir assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh